بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينين مروين بكسو لواذا ورالكي عالمك إنه سوق علي هل كان وايدا عدا مجرنك صوت الحيس صوت لواذا مدينين مروين با مدحوينها دولة فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ ayaa ku laabtay furmaha dagaalka ee lagu la dagaalamay khawaarid fadlan halkan kaga bogo warkii oo faahfaahsan subscribe iyo share kana nala wadaag ninka mahadsan. Assalaamu calaykum warahmatullahi madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale dib ugu laabtay furmaha dagaalka ee gobolka Shabeellaha Dhexe. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay ka soo laabtay degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan ayaa maanta diyaarad qaas ah oo ay leeyihiin ciidanka cirka Soomaaliya waxa uu kaga ambabaxay magaalada Muqdisho isagoo gaaray degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qorshaha ayaa ah inuu halkaas uu madaxweynuhu kala socdo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo abaabulka ka socda deegaanadaas si Al-Shabaab looga saaro deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe ee hadda ay ku sugan yihiin. mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Hirshabeelle ayaana ku soo dhaweeyay degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana mas'uuliyiinta soo dhaweeyay madaxweynaha kamid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen, saraakiil ciidan oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiin kale oo hore ugu sugnaa degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa la filayaa in kulamo kala duwan oo halkaasi kula qaato saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxda maamulka Hirshabeelle oo uu ka dhageysto warbixino guud oo ku saabsan xaaladda iyo sidoo kale dagaalada ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ay kula jiraan Al-Shabaab iyo guulaha ilaa haatan laga gaaray dagaalada halkaasi ka soconaya maalmihii la soo dhaafay. maanta ayaa waxaa dhacay duqeymo iyo dagaallo u dhaxeeya ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Al-Shabaab waxaana lagu waramayaa in ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gaar ahaan ciidamada gaarka ah ee dowladdu ay duqeymo ay fuliyeen ay ku beegsadeen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo ku dhintay duqeymo iyo dagaallo toos ah oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolada Galgaduud, Shabeellaha Dhexe iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha Hoose. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii hore waxa uu sheegay in uu bilaabanayo dagaal ka dhanka ah Al-Shabaab isla markaana la doonayo in lagu soo afjaro dagaalkaas oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay horaan sheegtay in uu noqon doono kii ugu dambeeyay ee dowladdu ay la gasho Al-Shabaab.